shantan qodob ee maanta kula wadaagayaa maahan waxaynu gacanta ku hayno waa wax u baahan runtii dadaal badan la imano inuu raxmaanka inuu mar walba weydiisano inuu noo barakeeyo arinta ugu horeysa ee gacmaheena ku jiran anytime iska socon kara waxa kamid ah waqtiga waxaynu gacanta ku hayno maaha laynooma sheegin xilliga waqtiga inuu dhamaanayo markasta ay kugu dhici kartaa in adduunkana iyo koomkana ka tagtid marka waxaynu ay tahay inaynu ku dadaalno waqtigeena inaynu kaga faa'iideysano waxyaalo waxinoo taraya adduunyo aakhiraba inaynu kaga faa'iideysano waqtigeena la geliyo wixii muhiima shaqadii familkii cibaadadii maxay nasasho haday tahay yacni in waqtiga qofku inta yare kooban ee adduunka la joogo inuu ku dadaalo sidoo naftiisa farxad u gelin lahaa iyo sidoo wax ugu qabsan lahaa ayaan doonay inaan isxasuusino maanta taasi horta ugu horeysa waxa weeye waqtiga arinta labaad walaalayaal waa caafimaadka laftigiisu waxaynu gacanta ku hayno ma dadku markay caafimaad qabaan waxay moodayaan inuu caafimaadku joogayo anytime isaguna iska socon karaa ilaahay baa gacanta ku haya inuu caafimaadka u dadaalno hurdo nagu filan la seexdo cunto tayo la cuno la nasto maxay tahay sport la sameeyo waxaasoo dhan u baahan yahay iyo arinta cajiibkee mar walba leena xasuusiyana waxa weeyaan inaynu raxmaanka weydiisano inuu caafimaadka inoo barakeeyo inoo ziyaadiyo taas oo ay ka turjumi karto 2 ragcadood oo duxaa inuu qofku tukado way isxasuusin weeye arinta saddexaad inaynu gacmaheena ku hayn oo anytime iska socon kara waxa weeyaan dad badan ay isku iloobaan waxa kamid ah qofku markuu reer dhisto bilowgii waad u soo dadaashay inaad zawj ama zawjad hesho sidaad reerka u dhisi lahayd waad u soo dadaashay balse haddana markii dambe dadaalkii baa yaraanaya kataana waxa loo baahan yahay maahin wax mar walba aad adigu gacanta ku hayso anytime buu iska joogsan karaa isaga laftigiisu waxaa loo baahan marka xalkaana dadaalina lala yimaado in waqti la geliyo awlaadii xaaskii zawjkii mid kastaba waqtigu xaq u leeyahay in la geliyo in la isna siiyo in la iska farxiyo in maad aragtay ka kale markuu garab u baahan la ag joogo in raxmaanka la weydiisto inuu reerka barakeeyo waayo waxa quluubta isku soo dhaweeyay oo isku keen doonay waa rabbi raxmaan marka taas laftigeeduna dadku way isku iloobaan arinta saddexaad waxa weeyaan marka reer la dhisto in waqtiga mid kastaba ku haboon oo xaq u leeyahay la siiyo oo leys taageero leys ag joogo oo maxay tahay sida geedka loo beero jacaylkana loo beero ta awlaadada u hayso ta xaaskaaga u hayso ta zawjaaga u hayso يعني reerkaasi inuu barako ay ku soo dogtana rabbi raxmaanka mar walba la weydiisto saafaraad inuu gacanta ku hayno anytime iska socon kara waxa weeyaan sidoo kula joogun iska tagi karana waa iimaanka walaalayaal marna kor buu kacaa marna hoos buu dhaadhacaa matalan gaariga oo kale shidaal baa wada haduu shidaal haysan ma dhaqaaqayo marka sida gaarigaas shidaalku ugu baahan yahay iimaankuna wuxuu ugu baahan yahay inaynu markasta inaynu ku dadaalno quraanka dhikriga inaynu ku dadaalno inaynu xasuusano mar walba rabbi raxmaankeena abuuray ka isaga laftigiisuna iimaanku ma ahan wax aad gacanta ku hayso markasta ku joogayo meel ku yaala waxa weeye arrin ay tahay inaad u dadaasho mar walba oo aroor iyo habeen iyo gelin dambaba ay tahay inaad shidaalkiisa aad siin karto taasoo ah dhikrigii quraankii iyo inaad mar walba aad soo xasuusato raxmaanka ku abuuray tan ugu dambeysay shanaad waxa weeyaan waa waxaad baratay horta marka horeysa waxaan rabaa inaan ku micnayo qofka bini'aadanka waxa kaliya bini'aadanka lawna ka qaadan karin waxa jira waxa weeyaan waa waxbarashada waxaad baratay adig gooni ku tahay adaa iskale waa keedkaagi waxa la oran karaa waa heshiiska ugu horeeyay haysato waxa weeye waa maalkayna lacag baynu haysanaay waa maalkaagii horeeyay waxbarashada aad baratay balse haddana waxa weeyaan waxbarashadan aad baratay maahin mid maanta dhan ku anfici kara 24 hours sababtoo ah adduunka competition buu noqday hadba wax jadiid soo baxaya hadba program cusub baa soo baxaya laga yaabaa inaad excel ku shaqeyso laga yaabaana 10 sano ka bacdi excel kaad ku shaqeynayso in laga gudbi karo ama video editing aad samayso arrimaha aad ku shaqeysato in laga gudbi kara ba dhici karta marka meesha aad ka shaqeynayso hadii uu jiro xirfad lagu qaatay 5 sano ama 10 sano ka bacdi xirfadaasi laga yaabaa inay si bedeli karto marka waxyaalahan la isku haleyn karin sidaad u haysato ka tagi kara waxa kamid ah
matalan waxaad baratay oo laga gudbay. Marka waxbarashada mar walba inaad wax kordhisan karto adigoo ay wanaagsan tahay waxa aad baratay ood ku shaqaysanayso oo ku siinayo qiimo. Haddana markasta waxaad isku daydaa inuu adduunkan uu noqday competition oo hore loo socdo oo markasta kolba wax cusub soo baxayo. Sidaa awgeed hadba wixii aad isleedahay 2 sano ka bacdi 3 sano ka bacdi ama 10 sano ka bacdi waxbuu tari karaa oo wuu anfici karaa inaad hadba waqti xaadirkan maanta aad joogto step by step waxaad iska barato ood wax iska kordhisato. oo aqoontu ma laha dhibic. Aqoontu dhibic male. ma fahamtay wax joogsanaya ma aqoontu markasta wuxuu leeyahay virgule buu leeyahay yani comma weeyaan comma markaad phrase qortid virgule baa jira markaad sentence aad qorto comma la sameeyaa marka commadaas wax ka dhigan tahay sentence-ka uu sii socdaa. Tacliintuna waa sidaas oo kale ma laho meel lagu istaagayo markasta wax sii socdo weeyaan waayo tacliintu iyo aqoontu albaabo badan buu leeyahay wuxuuna ka tirsan yahay maanta waqti xaadirkan aanu joogno waxyaalaha aad haysato laakiin laga yaabaa inuu kaa tegi karo wax walba waa faraq ku hayn competition way taagan tahay adduunkan horaa loo soconayaa wax badan oonanu haysan 10 sano ka hor maanta jooga ayaa jirta oo dadkii u bartay maanta ay ku shaqaysanayaan. Kasaas awgeed hays dhiganin oo waxaad baratay hays oranin isaga uma ku ekaanaya markasta waxaad isku daydaa adigoo tacliintii bartay ood haysatid diplomagaagii ama diplomkaagii amba aad haysato shahaadadaadii haysta haddana markasta isku day inaad wax kordhisan karto hadday tahay luqadda hadday tahay logiciel aad wax ka baranayso hadday tahay maanta haddaad ku shaqaynaysay waxyaalo editing oo wax kale oo kasii casrisan hadduu jiro waxaa bal isku day inaad baran karto laga yaabaa maalin ku anfici doono. Marka intaas waxay ku eg tahay 5 arrimood ee aynanu gacantaynaga ku hayn ay tahay in loo dadaalo mar walba si aynanu haysan karno. Anigoo intaasoo dhan soo tiriyay haddana inaynu ilowna maaha inuu jiro qadarta inay jirto wuxuu Ilaahay noo qoray mooyaane inaanu wax kale la qaadaynin si kastoo loo dadaalo waxaa yaroo lagu qoray unbaad helaysaa iyo in demaad aragtay waxaad u dadaashay 100 laabkeed 3 laabkeed 5 laabkeed 10 laabkeed 100 laabkeed inuu Ilaahay kuu qorayo ku siinayo. Marka wax walba waa niyada marka waxaan rabay inaan is xasuusino 5 qodobi maahan waxaynu gacmaha ku hayno oo maxay ayaan isleenahay markaynu gacanta ku dhignana taan isleenahay khalaas kol hadaan heray igama tagayo waxaasi uu tagi karaa anytime taasana ay tahay inaynu ku dadaalno 5 qodob ee soo sheegay oo maxay khaasatan ducadan aynu badsano waayo waxbaynu gacmaha kuma hayno saynu wada ognahayba insha Allah qof walba waxaan rajeynayaa bash barwaaqo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.